waayahay haddii aad baraare iyo barwaaqo ku jiifateen ama ku soo toostaan xaalka Djibouti sidaasi ma aha banaanbaxyo waaweyn ayaa ka socda dal iyo dibadda qurba joogtu qayldhaantooda ayaa baxaysa waxaa la soo dhigay baraha bulshada duuriye sare oo ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Djibouti oo inta Djibouti laga soo qabtay Ethiopia isagoo ka dhiidhiyay dulmiga halkaas ka socda kadibna lagu xiray masquul yar halkaas oo ah qol hal mitir ninkaasi Fuad Yusuf la yiraahdo ayaa baraha bulshada qabsaday laakiin dadka xeeldheerayaashu waxay leeyihiin Fuad wuxuu horseedi doonaa ama uu gogol xaar u yahay xorriyad taama iyo dimuqraadiyad ka hana qaada jamhuuriyadda Djibouti oo wuxuu ku haysto Ismaaciil Umar Geelle tan iyo markii uu xilka kala wareegay adeerkii Xasan Guuled Abdon intii uu joogay xilka madaxweynimada Djibouti Ismaaciil Umar Geelle Soomaaliya waxaa soo maray Cabdiqaasim Salaad Xasan waxaa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa ku xigay Shariif Sheekh Axmed waxaa ku xigay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kale oo ku xigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin marnaba isaga xilka kama degin mana aqbalin in doorasho dimuqraadi ay ka dhacdo jamhuuriyadda Djibouti waatii aan ciwaan ka qoray faala anigu magac diray Ismaaciil Umar Geelle oo dabaysha la tartamay kana guuleystay haddaba xaaladdu arrimahaasi iminka ma hadlaynee waxaynu ka hadlaynaa xaaladii ugu xumeed ee xaqul insaanka inay Djibouti ka taagan tahay in caawadaas oo banaanbax weyn ka socdo inaad yaabi doontaan muuqaalada aan idin soo wado haddii aad aragtaan inaad xaqiiqsan doontaan Ismaaciil Umar Geelle inuu yahay nin arxan daran oo kaligi taliye ah ama iska dhigaya fircoonkii qarnigan balse wuxuu dhaceen inta aan muuqaalada idin soo gudbin aan ka wareysto Xasan Sheer oo arrintan aad ugu dhuunduleela ahna hogaamiyaha mucaaradka Djibouti Xasan Sheer waad maadsantahay daayir waan ku maqlayaa daayir aan soo waayahay
siday wax uga dhaceen siday wax u socdaan banaanbaxyaan arkayaa fiideogii Fuaad baan arkayaa laga soo duubay musqusha soo ku dhex xiran bal kow nooga bilow meesha ugu dambaysanagii waxweeyaan daahira waa maasantahay Fuaad Yuusuf Cali waa nin dhalinyaro oo reer Djibouti waa nin duuliye oo ciidanka cirka ah ee Djibouti waa nin laba xidigla ninkaas wuxuu wax ku soo bartay wadanka Morocco ku soo bartay kadib ciidanka cirku galay waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa 10 nin ee duuliyaasha ciidanka cirka ugu firfircoon Fuaad waxay khilaafeen oo isfahmi waayeen ninka ciidanka cirka injiib la yiraahdo isku haybta yihiin Ismaaciil Umar bas isfahmi waayeen oo isdiiday isfahmiyana ma hine Fuaad waxa loo diiday inuu shaqeeyo oo shaqadiisii qabsado duuliyanimo baa loo diiday diyaaradaha cirka ee Djibouti looma ogolo inay kiciyaan ama ay fuulaan dadka ka soo jeeda beeraha waaweyn ee meesha degan kadimada reeraha ciise maxay qaybaha waaweyn looma ogolo waxa loo ogol yahay bas cidda Ismaaciil Umar ay isku cid yihiin ama isku hayb yihiin reeraha ma maasanku baa loo ogol yahay miyaa u dhigaa hadalka ma maasanku baa loo ogol yahay ma maasanku baa loo ogol yahay iyo reeraha yar awood badan ku leeyahay Djibouti sida Gadabuursiga Isaaq iyo Carabta loo ogol yahay taana waxay ka dhigan tahay dadkan reeraha waaweyn waxa la leeyahay mucaaradka ku badan yihiin inay diyaarada kiciyaan ku weeraraan baa laga cabsanayaa aqalka Ismaaciil Umar baana keenay amarkaasi inayna diyaarada loo galaan dadka reeraha waaweyn ka dhashay ee beeraha kala xeeyan waxaan u deedaa jufooyinka kala ciisaha markaasi waxa weeyaan Fuaad hadaba waa loo diiday inuu shaqadiisii qabsado diyaaradii kiciyo waxa lagu soo koobay shaqadiisa inuu noqdo maxay xafiis joog inuu noqdo oo markuu shaqada yimaado subaxdii xafiiska kaafiga oo iska warwareeg baa la yiraahdaa ciidanka cirka xafiisyada ciidanka cirka iska dhex wareegayay arinta uu ka dhiibiyay Fuaad oo diiday markuu ka diiday Fuaadna waxa dhacday muxuu ahaa inuu cadaadis si kale loo saaray sababtoo Fuaad ma fahamsanayn waxaan loogu diiday shaqada ee wuxuu moodayaa ninkan wahiib la leeyahay inay saystaan buu moodayaa wax nidaam ka jira meesha oo ka dhisan inuu yahay ma Fuaad waxa la sameeyay mishaarkiisa 3 qaybood loo qaybiyay qayb quraata loo daayay si looga dhigo culays wax u garto halkii uu ku joogsan waayay Fuaad oo culayskii baa si markii isagii waxa sii batay isku horin markii isagii ninkii xukumay ciidanka cirka ee wahiib maxay loogu dhiibay meesha muxuu ahaa sababtoo ah wuxuu yahay nin la beelay Ismaaciil Umar oo kidin hoose la ama maasan maahin waxay isku siiyeen jufo hoose oo maxay bahfur laba isku yihiin ninkaasi raka waaweyn baa jiray oo ka darajada waaweyn meesha xukuumada ciidanka cirka ka ahaa jiray kolon oo jooga iminka lagu qoray safaarad Djibouti ruushku halka lagu xabsi uga dhigay maxay xabsi safaaradeed looga dhigay halka iyagoo la yiraahdo wuxuu kala taliyay safiirka Djibouti fadhiyo ruushka ciidanka kala taliyaa baa la yiraahdaa waxa kale jira nin kale kolonel oo diyaarad la dhacday oo waa la dilay baa la yiraahdaa ninkana rag badan oo mas'uuliyiin ahaa baa wahiib la soo qaaday oo markaas isna laba xidiglaha la dul mariyay oo waxa loogu dhiibay ciidanka cirka inuu maxay hayday uu ilaaliyo danaha gaarka ee madaxweynaha iyo reerka madaxweynaha markaas Fuaad wuxuu uu ashkatooday shaqooyinkii loogu talagalay ciidanku inay ku ashkatoodaan markay bawr leeyihiin buu maray warqadii u qoray wixii dhan waxay ka socon waayeen Fuaad cadadii iyo qaraxii wuxuu goostay inuu hadda dibad uu baxo maxay sidoo isagu u dhigay hadalkii uu jihaatamo Fuaad uu cararay wuxuu galay dalka maxay hayday diyaarad isku dayay inuu kiciyo diyaaradii uu kiciyeeday isagoo u dhuntay diyaarad oo doonaysa Malaysia inuu diyaaradda ku kiciyo kadibna Fuaad uu cararay wuxuu galay dalka Ethiopia galay ee maxay hayday Fuaad khalad ku sameeyay waxa weeyaan dalka Ethiopia Djibouti heshiis waxa jira ka dhaxeeya oo ninkii ciidan ay cararay wadankan ama wadanka kale u cararay inay soo celiyaan oo heshiiska Ismaaciil Umar iyo waxa wada galay TPLF markii talada qabsatay dargigii la riday baa la galay Fuaad arinta isagoo ka fiirsan buu Addis qaaday Addis buu tagay Addis waxa ku soo dhaweeyay Abduqaadir nin la yiraahdo ururka Fruitka kamida oo dhalinyaro oo reer Djibouti oo la yaqaano oo mucaarada ku soo dhaweeyay Cabbeesha Cafarta kadibna Fuaad waxa ku dhacay waxa weeyaan lacag baa dibadda looga soo diray Dahabshiil baa loo soo wariyay Dahabshiil baa sirdoonka Djibouti ka wargeliyay lacag Fuaad halka loo soo dhigay Fuaad sidii bay ku qabatay ciidanka dawladda Djibouti ka wargeliyay dawladda Djibouti waxay ka wargelisay dawladda Ethiopia sida lagu qabtay Fuaad oo gacanta lagu dhigay kadib Fuaad waxa la qabtay oo gacanta lagu dhigay bishii afraad 8 wuxuuna dalka Djibouti ka cararay bishii 3 bishii afraad 8 Addis baa lagu qabtay ciidanka sirdoonka Ethiopia qabtay
ديارد عيدن كجيبوتي إلى هو أسواسون ماركي لمبر كيبي هيبقى ككعب جيبوتي أو تكتي أديس أبابا وحنا السعودية صدح نين أو دولي عيدن كعيرك على السعودية صدح نين أو سردون كجيبوتي على السعودية waxay ka dhaadhacday Addis Ababa marka ninka sirdoonka watay waxa la yiraahdaa Warsamo Cali oo Ismaaciil Umar Baadeero waxa ka dhaadhacday ii sheeg maxay ahayd Addis Ababa fuad waxa la soo saaray diyaaradii bishii 14keegii sanadkan waxay ka soo degtay Djibouti markay saacadu ahayd 5 galabnimo fuad markii waxa loo qaaday xabsiyada ay lagu jirdilay sirdoonka ku jirdilaan dadka markii xabsiyadii la geeyay fuad jirdilkiina maxay ahayd anagu waxaan ishkata bilownay inaan qarabnay midoway meel kasta u dirno dawladii markii qarab u yuna maxay ahayd qayb qarabnay midoway qaabilsan human rights ku ay dacwad ku furtay dawladda Djiboutina ee dawladda Djibouti 26 bishii afraad bay xabsiga Djibouti gaysay hoolalka waaweyn ee lagu xiro dadka lama dejin ee ay ku jiraan dadku lama dejin nadiifta ee fuad waxa la geeyay qol dadka lagu jirdilo oo la yiraahdo saliil دوز dadku yaqaanaa reer Djibouti qolkaasi waa 1 mitir waxa dul seexanaysa musqusha ku dul cunaysa musqusha ku dul tukanaysa marka maxay ahayd markaad cuntada cunaysa iyo biyo cabaysan ka qabanaysa marka meesha dadka lagu hayo waxa ugu dhintaan caafimaad darida ugu dhintaan dadku marka dawladdu soo saartaan oo dadku qofkiisa aastan bay tiraa ninkaasi TB sha gashay iyo maxay baa galan malaraay dadku waa loo socodiyaa marka meesha qolkaasi waa markii uu horeysay taariikhda Djibouti film video laga soo duubo jiidan fuad baa horeeyay oo laga soo duubay taabad gigax ku riday waxa gigax ku riday dadka reer Djibouti ma wada arag anagu waan arkay qolka oo meelahaas waan arkay horaan u arkay meelaha xuquuqul insaanka marka mid dagaalamay ururada ayay fursad u helnay inaan gali karno oo soo eegi karno marka ii sheeg yaa fiidii waa sida lagu hel mucjisada ah igu heli dawro fiidii mucjisada ay fuad oo musqushii lagu saxaroonayay ku dhaxiran sida lagu helay waxa lagu helay maxay ahayd ciidankii meesha ilaaladii aan la heshiinay iyo la heshiiyay oo la mariyay la sii dhaxmaray ciidanka xabsiga ilaalada si marka banaanbaxay waaweyn baa ka soo Djibouti kacdoona ka jiray qurbihii say wax kugu muuqdaan arintan masdii kartaa waa arinta soo afjaraysay tacaddigii iyo kaliitarisnimo Ismaaciil Umar Geelle waxa weeyaan banaanbaxu xalay buu bilaabmay xalay ka bilaabmay xaafadda 6 buu ka bilaabmay kadibna iska ballaadhay ilaa iyo balbal wada gaaray meel kastuu gaaray maanta aad baa la isku ballaadhay qof baa ku dhaawacmay rasaas askartu ay ku dhifteen gabar baa rasaas ku dhifteen askartu oo dhaawac yar oo fudud gaaray dadkii banaan baxayay kadib bileyskii markay dadkii bileyskii isku dhaceen waxa meesha soo galay oo soo baxay ciidankii madaxtooyada madaxa uu xakumo maxamed jaamac oo isaguna nin jufo hoose isku yimid Ismaaciil Umar oo u dhigma sidii ciidankii koofiyad casti loo dhanayay Ziyaad Barawlaha yaa soo dareeray oo iyaguna shacabkii weerar ku qaaday markaas aduu ilaa imikadan kula hadlayo waxa la sheegay xaafadda la yiraahdo dadka reer Djibouti kartoon ay yaqaanaan baa la shiidayay oo boolisku haystay iyo xaafad balbal ku taala oo teetuwa loo yaqaano marka arrimahaas waxa waqti wax sii soconaya way dhici kartaa in fuad sabab u noqdo kacdoon Djibouti ka dhaca waayahay xasasheer waa masantahay waayahay dadka iminka waxaan daawasiinayaa fuad markii uu duuriya ahaa video kiisa ila daawada السلام عليكم ورحمة الله وأنا جو جسنا فؤاد وأرمي دلاركا أوفيسيه لابد يكون يو تبكي إلى ما يمات والتواصل وحن إذا كجرو أن أوفيسيه عورته والتواصل وانظرهم عدالة ضرو عقد جوجلين لين حردان هايستا الله سيدا ودونا ومدى كيلاي إد الله إد وكعب صونايو أين جري حمانت وقيستي دنبيغا وقيستي dadka bili aadanka sida uu kala qabyaalada uu kala dhax abuuray hal milyan lacag ku dhow diyaarada lacagtooda uu cunay 10 guri uu dhistay 10 gaari uu sidii 10 baa mashtariyay wax alla wax
la hadlaya inay jirin dhib walbuu geystana xeerkii militarimaan ka qornay warqadaan ka qornay raaporaan ka qornay cid alla cid waxaas eegis ayna jirin ninkan waxa weeye jawaal oo taliska la rabo taliska ayaa la rabo waxa weeye dadka reer Jabuuti shacabku war maanta ta lagu jiro maanta ta aan ku jiro ta ay ku jiraan ta aad ku jirtiin war wasqooda mid mado ciidanku boqolkiiba 70 way dulmayeen way dhibaatoonayaan way gaajoonayaan meel walbay joogaan dumeeray joogaan Soomaaliya joogaan xuduud walbay joogaan qaar baa si tabalomadooda 15 sano 20 sano dariiskooga 15 sano sita kabaha aanstin ulaa istabaray magaaladii Jabuutina shacabkii wadarkiisa wax dulumka u dhacay ilaahay rag buu naga dhigay ilaahay rag buu naga dhigo waxa weeye jawalaalayo waa inaan kacno war dalkan anagu qori ku xoreyna maahne si kale wax kuma xoreynayno walaalayo anigu waan baxay hadal aad kaga hadashin Facebook problem war waxaan wax la doonayo in aad gaajootiin inaad saliicdiin inaad dulowdiin oo sharaftiina iyo xaqiina ilowdiin oo qof waalan u ekaatiin haddaba taana maanta qacmihiinay ku jirtaa haddii awal aad soo baxayseen oo gaboodna la geenay war maanta idinkaa wax xidhi doona ee ma soo bixi kartiin war wadan Afrikaana oo lagu xoreeyay Rwanda soo qaata wixii ka dhacay maanta halkay joogaan Soomaaliland garabkeena soo qaata qori baa lagu xoreeyay walaalahay war wixii noqon ma wax kale kuma dhaxsanayn wixii gama maqro nin la baalaanay nin bayloodana laakiin si dulumka dul qaadan way dulumka ayaan dul qaadan way dad bila aadan oo u baahan in aad noqotid basaas fataal wad kariyerkaaga wixii aad soo baratay ilowdi waxaan ahayn basaasnimo iyo fataalnimo iyo dulinimo taad ma dul qaadan kareen walaalahay waa soo bax baashu qaameeyay ku jirta maanta haddaad maqlaysiin soo bax saacadda aad fiidiyowga daawan doontiin anigu waan baxay walaalahay haddaad daawateen fiidiyowgaas waxaan ku xijinayaa fu'aad oo musqusha ku dhex xiran bal eega noloshu ku noolyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا لبالي فؤاد يوسف عليا waxa aan horta jeclaystay in aan ma aragtay idin duubas meesha aan seexdo waa suuliga baan garabsanayaa habeenay dharaar salaada ku tukada aagadaha biyaha darkiisiin baa la ii soo dhuraa oo daaqad shabaga la iga soo dhiibaa suuliga darkiisiin waxa ka soo baxa kaneeco maxay ahaydeen barambaro darxi jirinqaa dhaqsi baa habeen dharaar oo dhan ku haysanaya والله هو نلول أدق أو قف بالآدم لو قلت لقلين نكون ورده حقوق بالآدم ودنا يرنبين أجد ده بنقد والله سؤال ما أركتني حويان كصوب حياة أنا سجى قطه إن كستوي هذا نهارها كصوب حان لكن سير الحمد لله ولا ما أنت يفشل هاي لبا وحن مريا لبا بدود ما أنت أي كده كان أنا وصحيح والله يسوق قطي يكده وانسى waxa aan jeclaystay shabaga daaqada laga soo dhiibo inaan tuso ka shabagaas weji ilbaabkii shabaga daaqada baa laga soo dhiibaa marka
waxaan walaalahay u jeclahay inaan ma aragteen horta raggii aniga ma aragteen ay khaayimay ugu horeeya ninka walaalkay ee xaggaa ku bartay ee barkhad cali cudum la yidhaahdo waan ku saamaxay walaal waan ku saamaxay waa iska dhibaataysan tahay dhibaato badan baa ku haysata waan ku saamaxay walaal anoo taa ka gudbaya ma aragteen waxaan horta walaal doonayaa inaan sheego aniga wallaahi dhib badan bay gaadho walaal dhibtaa badan oo ma aragteen aan noqoto galoonkayga oo aniga laygu dambaysiiyey oo qof kale laygu bedelay magaciisii ninkaa laygu bedelayna ma jecli inaan sheega magaciisa sababtaa waxa waa ilaahay baa wax bixiya waan ku samray waan iska ma aragteen shaqaysanayay haddana waxaa dhacday ma aragteen sidii iyadoo ay tahay inay ma aragteen diyaaraddii baa layga joojiyey marka diyaaradda waxaa lagu wadaa amba komodondo booq amba copiloot labadaba midba ma wadayn waan iska fadhiyay xerada haddii aan maalin saacad haddaan hafsaamo waa lay xidhayay waa lagu xidhaa lay gurinayay xerada amba gaadh baa tahay 2 cisho ganaaxa marka waxaasoo dhan anoo dusha saaranaya ayaan haddana mishaarkaygii buu igu yimiday wallaahi mishaarkayga markuu igu yimiday waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay bishii saddexaad 2019 bish kowdeedii mishaarkii soo dhacay baan ka waayay banka kabacdi markaan ashkata tegay waxaan u tegay ninka ugu sarreeya xagga ciidanka security military oo ku shaqale waxyaalaha khilaafka waxaan ku yidhi colonel maxamed casawi baa la idhahdaa arrinkayga markuu maqlay wuxuu igu yidhi arrinkan wax dhici kara ma aha ciidanimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhaynaa ninka mishaarkaaga bedelay ee commando aadan abdiraxmaan sheer commando aadan abdiraxmaan sheer markii loo yeedhay wuxuu yidhi fu'aad arrinkiisu waa arrin aniga baxsan waa isagiyo korneelka ka dhexaysa ee korneelkiisa u tago soo baryo wallaahi baryo ilaahay baa laga hoos galaaya waxaan idhi war marxabe waa ku samri ilaa maaya maaragteen waxaan soo gaadhnay bishii 8aad kowdeedii 2019 waxaa laga jaray kooraankii baa laga jaray aqalka waxaan idhi bal u teg haddaba aqalka ugu tego maanta bay soo dhig oo cagaa qabso marka waxaan moodayay qof bini'aadan aan moodayay oo maaragteen wanaagga aad samayso waxaan lahaa wuxuu masixi colaadoo dhan masixi markaan aqalkii ugu tegay waxaan ku yidhi walaalkii wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonaya inaad xaggayga ka ahatid adna xaggaa ka ahaado mishaarkaygana aad ii soo celisid sababtoo allaydhkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yidhi soco waana ka soo fikiray waan eegaynaa dib dambe maaragteen ilama hadin dib dambe laydhkayguma soo celin waxa weeji tii dembi askari baan ahayd wax dembiya haddaan yeesho markaan dembiga yeeshaba waa layga marayay heerkayga oo ganaax mishaarka waa laga goynaya wax walba lagu samaynaya haddaad dembi samaysid tii anigoo ku samraya waxaa dhacday marka in haddii toole bankigii isagna ganaax soo saaro sababtoo lacagihii ayuu waayey banku mishaarooyinkii buu waayey ganaax buu soo saaray bil walba ganaaxii lacagihii baa igu sii kordhay waan u sheegay waxaan ku yidhi war ganaax baa igu socday mishaarkayga ii soo celi marka isagu mishaarkayga wuxuu igu yidhi gacanta ka qaado oo askartaa la qaado oo saanka askarta hoose tagal oo nacam si karaamadii sharafta layga hadlayo oo haddii toolada nacam laygu tunto marxabaan yidhi dee waan iska qaadan jiray wakaas laakiin ganaaxa baan haddan u sheegay ganaaxii baa laygu bixi waayey haddii toole waxaan yidhi wax aniga culayskii isaarnaa iyo shaqadii aan joogay waxaan haddana dareemay noloshii kale caadiga ahayd ba inay culays kale saaranta in ma aragteen tacliintii aynay jirin oo ubadkayga anigu aan habeenay dharaa la dadaalayo cashar u dhigay xaafadii in caafimaadkii ubadkii ay iska bukoon karaanba ilmihii shuban ku dhici karo ilmihii kanaaca ku dhici karto ilmihii kunguyaa ku dhici karo war bulsho iska wada waxaan arkay dhibaataysan oo taag daran oo caafimaad haysan oo tacliin haysan oo lacag haysan oo waxba haysan oo iskaga nool ma aragteen si darilah iskaga nool waxaan idhi haddaba sidan waxaa noogu wacan waa aamusnaanta haddii qof walba meesha uu joogo hadduu demisyon qoran lahaa amba uu qarxi lahaa dee wax unbaa isbedeli lahaa laakiinse waxa weeye qof walba wuxuu ka fikirayaa
cadowga isku jibin cadowga ma jira cadowga waxa weeye waa ragga talinaya weeye ragga talinaya haddii runta loo sheego in la dilin in argixis lagu noqon laakiinse ragga haddii runta loo sheego waayo oo qof walba meeshuu joogo asonivo uu odhan waayo war sababaa hadduu odhan waayo de on complice maantana de waadiga arkaysiin meesha aan taagannahay dadka soomaalida ayaa wallaahi muqdisho jooga ayaa naga nolol fiican oo markay na arkaan dadka reer Djibouti inaan xanuunsanayna noo haysta buusbuuska qofka uu leeyahay iyo faqriga ka muuqata dadkeena iska badaa markaad airport markaad kasoo dhaadhacdid ayaad arkaysaa rag xamaaliin oo dadka ka sadaqaysanaya waana shaqaalo dhar bulooya xidhan yihiin 10 euro 20 euro wixii loo tuuro ayay qaataan laakiinse waa sharaf xumo weeji waa daldan oo dad dalxiis ay marayaan oo dad shandadooga guraya ma jiro adweynaha airport shandadaha laga hor qaadayo lacag lagu weydiinayo marka waa inagoon waxa dhibtaas jirto waana fool xumo weeji dalkeenu meel kama noolo anigu waxaan leeyahay maanta 2 bilood ku dhowdahay ilaahay baa wax dilay war maanta telefoonkaas aan ku helay si ay idinla hadlaan intaana ilaahay saacadeeda dhameen ayaan jeclaystay inaan runni sheego war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto dadku waxay ku nool yihiin darxumo daranyo cadaalad darro dulmi wax walba lagu nool yahay anu runta waan sheegay anuu xabsi ku jira waliba runta neesi sheegay ilaahay baa wax dilay kaaleeyna dilay ilaahay baa wax dilay haddaad wax dishin kaaleeyo halka ay ku dhaximaado ani dilay sababta ma doonaysiin inaad wax bedeshiin waxa aad doonaysiin mar walba ummadda inaad isku dirtiin ummadda inaad khilaaf ka dhaxdhaliseen marka waxa aan leeyahay taasi halka markaan kaga gudbo anu waan dhamaystay aniga ayga nixina waxba ay wax rajoon xaqiina ka sugay ma jirto laakiinse runta waan idin sheegaa amba dalkan wax ka bedela amba ma aragtay amba wakaas laakiinse shicibka reer Djibouti waxaan u sheegayaa dulaysta inaga isdulay walaalahyo qofka walaalkiina maanta xabsi ku jirana idinka ay dartiin buu xabsi ugu jiraa muudinayeen dawladdu waxa ma aha idinka dartiin idinka haddaad dibadda u soo baxdeen wax walba waa hagaagi lahayd qofka xabsiga ku jira ayaa hagaagi lahaa xabsigan walaal cunto lagu cuno nolol lagu noolo daranyi iyo darxuma lagu nool yahay waa qof muslim waxa halka ku dulman idinkuna aad seexanaysiin aakhirana waa leeyihiin waxa aan la hadlayaa Sheekh Hussein Ali Abdurrahman Barkhad Good Abdullahi Nuux dadka Abdurrahman Bashir ilaahay baan idinku xawilay dad ka hadli wadiin maanta arrinkeena arrinka Djibouti haysata ma aragtay bulshada reer Djibouti arrinka dadka xabsiga ku jira 500 iyo dhibay yihiin ku qof haddii aad ka hadli wadiin ilaahay baan walaalahay idinku xawilay taasi halka ma kaga gudbaya culimada siiba weyn laga hadlo Sheekh Hussein Ali taa markaan xaga ka gudbo waxaan la hadlayaa familkayga waxaan leeyahay awalwalina ooyina sababta wax farxad leh qofkiina markuu qabto ku farxa mushxarad sameeya xabsi buu qof kale awooyina maxaa hedanay qofkaasi hadduu xaq ku dhinto mushxaradii sameeya aniga ilaahay baan igu dheershay qofkii soo ooyay aniga qofka walwala ubadka iyo noloshan waxa ma aragtay waxa u noolahay waa ubadka maanta ninka barjeenaya ee ubadkiisii tacliin haysan ee caafimaad haysan ee reerkiisii nolol haysan aakhira waa la weydiin doonaa marka war maanta waxaan leeyahay anigu waajibkaygan gutay waajibka saxan gutay waajib raganimo la gutay waajib aakhirana lagu faa'iideeyo adduunyada lagu faa'iideeyo gutay marka ooyinay masxarada shicibka reer Djibouti waxaan leeyahay ilaahay idin qabto anu wax aan naga qarshay ma jirto waxaan idin hori karayo dhanba waa idin horay shaqadeedii baan idin furay si aan maanta wax u bedeli karno oo idinkana wax aad uga faa'iideysan kartiin sababtoo ah maanta faqri baad ku wada nooshihiin 80% baad faqri ugu wada nooshihiin shoomeerinimo iyo daranyo iyo darxumo marka dad waxaasoo dhanba inay wax iska bedelaan weeji say waxaasoo dhan iska bedelaan wax walba qacmiin ay ku jiraan xabsi in laga cabsin dhimashana inaan laga cabsin wax maanta noloshaad ku jirtiin wax inaga daran ma jirto wallahi wax idinkaga daran ma jirto marka aan waan isoo duceynayaa ana isoo duceeyaa saacada fiidiyoga aad aragtiin wax dhib walba waan la kulmi doonaa gana si walba waa la geystay alxamdulillaah rabbil caalamiin jirkaygu waa uu xanuunsanayaa
وكولال وح الله وحنا كريم مجرته الحمد لله رب العالمين جركنا وضحنا الصنايا يسود دعية ولا ليال أنا وح أنا لما وح نبغى نشجع كريم مجرته لكن سوى حين الشيء ورعبسونين ولا الله يوم عبسونين تن أتكجتين با والله إذا كقدر أنا داد ما أنت حرنا مكوادشين مركا وروحنا دوننا ما أنت وكرسوني وعافمد وتعلين ونولش أو دبيرات كورانا نقطة بيان نقطة كوران سو جريستا نقطة دل كأنه دل بلع نقطة ومولل ودي مثلهين وحصل لما دوننا دل كو حسابي شا كي كفر وحدا الحساب وحود ما فماتيزي لقدقو دل يرتا دوك لو ضيّرو وحي فماتيك تغانتا كلافيس وبفاسيل إسلامتا عسامة جوجتا عسامة ما أنت حيرك قويس كإيمان يسمى محكمة وصل رئيسا وإنا محكمة كاش على سبيل محكمة وإنا كنت على التجربة أبخ وإنا مال والب لقيها للدستريك لقوس ميكرو أدرسات فحل وإنا نرش البيرين تانا إنكم بس ميكرين أقول الله يوم مركا أنا جو حن لي هاي ورهد أنا واندا ما يستحضل أنا هديت ولا واحد سجى وودكي يعني يساعد إلى هي دمستر xaaladda Djibouti caawo waa sidan
Sis mara sis. كل حلوين فيديو بصدر فيسبوك ممكن وين ما قال يا ما تسحب بوقله دول ما قاعد يدينا دول ما قاعد يدينا بارتي والله طحي يا قدر والله والله يا رب حاجه يا نقول تجيني سؤاليه ده سؤاليه دول ميجا عديد هنا هاي يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر تعال تعال جاي قدامي دول ميجا عديد
أيوة كنا داخلين بكل فيديو صادر فيسبوك ممكن وين ما قال يا ما تسمع بقولها دول ما قاعد يدينا دول ما قاعد يدينا بارتي والله طحي يا تفضل والله والله
نقول تجيني سؤال عليا سؤال عليا haddii aad farxad iyo xorriyad ku nooshahay dad buu xaalkooda sidaa marayaa ismaaciil cumar gelle qofka aan aqoonna qadiyadiisa iyo soomaalinimadiisa iyo cadaaladiisa iyo dimuqraadiyadiisuba waa taa daahir cali wuxuu leeyahay saxaafaddu mala saaxiib joogta dabashana geedaha marxdo inay ciyaarsiiso barnaamij kan ka qota dheer oo dooda ayaan ka qaban doonaa xaaladda cakiran ee ku dhacday Fuaad Yuusuf waxaan leeyahay I'm sorry waa ka xumaay